kulankan oo ay kaga hadlayeen qaybaha kala duwan ee bulshaweynta ku dhaqan degmadani taariikhiga ee Taleex arrimaha ammaanka iyo hadallo ka soo yeedhay qaar ka mid ah bulshada ku abtirsatay deegaanada SSC sidoo kalena baaqiyo kala duwan ay ugu dirayeen dadyow ay ku tilmaameen in dhibaatooyin fadqalalo ay ka wadaan gudaha degmada Taleex ayaa maanta ka dhacay degmada Taleex kulankan oo ahaa mid ballaaran ayna ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada oo ka kooban waxgarad aqoon-yahano haween dhalinyaro iyo mas'uuliyiin kale ayaa waxa ay dhamaantood ku dheeraadeen dadyowgii ka hadlay kulankani arrimaha ammaanka iyo xasiloonida deegaanka iyagoona geesta kale ugu baaqay dadyow ay ku sheegeen in dhibaatooyin ay ka wadaan degmada Taleex in ay dhibaatada ka daayaan deegaankooda iyo waliba sidoo kale in beesha ugaaryahan ay dhamaantood ka soo qayb galaan shirweynaha beesha uga socda degmada Sarmaayo ee uu gogashiisa dhigay garaadka beeshaasi garaad Salabaan garaad Maxamed garaad Maxamuud haddaba waa kuwan dadyowgii ka soo qayb galay kulankani oo arrimahaas ka hadlaya daanahay degmada reer Taleex waxaanu soo dhaweynaynaa madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdisaad Cali Shire annaga oo baaq u dirayna dadka la yiri waxay yiraahdeen waxaanu weerarnaa Taleex oo madaxweyne ku-xigeenka u dhashay baan u diidanaa inuu yimaado qasna ka wada annagoo beesha reer Taleex raali kamani waxaanu u diranaa inay naga joogaan haddii ay qas wadaan haddii ay wanaag wadaan wanaagaanu wadno wiilka ma soo dhaweynayna waxaanu kale oo aanu leenahay gogosha taala Sarmaayo ee ugaariyahan lagu heshiisiinayo ee uu dhigay garaad Salebaan garaad Maxamed halaga qayb galo ugaariyahan ka qayb galo waxaanu leenahay dadka weerar Taleex ku la dabacsan oo qaska ka wada oo ilaa iyo intuu yimi qaskaas uu ka soconayay waxaanu leenahay uma baahni baanu leenahay يا عبد الله حسن بانو كدخل annaga iyo in Cabdullaahi Xasan dibadiisna waa ku beeranay waa joognaa uma baahanin Taleex wax lagu soo weeraro oo qasi loola yimaado diinta islaamkii oo alhiin alla yahay wixii qas wadow waa inaad naga joogto waxaan ku faraxsanahay madaxweyne ku-xigeenka iyaga Cabdisamed Cali Shire oo noogu yimid magaalada Taleex aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waxaanuna u diraynaa hambalyo waxa weeye haddii beesha ugaaryahan waa inay tagaan Sarmaayo shirka ugaaryahan waa inay ka qayb galaan waxaan ku faraxsanahay madaxweyne ku-xigeenka Janaraal Cabdisamed Cali Shire oo noogu yimid magaalada Taleex aan ku soo dhaweynay inay magaaladiisi tahay in laga taageersan yahay in laga rabo inaan u hambalyeeyno baan ku faraxsanahay waxaan baa ugu dirayaa oo la hadlayaa qoliyaha maxaan ilaahdayay dhulmahante oo rag iyo dumar bale ilaa Taleex maxaan dhahay waa weerareenaa waxaan leeyahay walaalayaal Taleex weerarkeeda aad leedihiin waxaan naga dhimanaya 600 haday ku dhimanayso hadii 100 ku dhimanayso Taleex baan weerareenaa 100 nin oo Taleex kaga dhimanaya 100 nin oo Taleex kaga dhimanaya waxaan ka jeclaan lahayn deegaamada dhulmahante iyo dalka dhulmahante inaad ku xareysaan oo idin kaga dhintaan gabadhii ka hadlayay buuhoodle oo lahaa madaxweyne ku-xigeenka Puntland Janaraal Cabdisamed Cali Shire Taleex kama talin karo wax kama aha waxaan idin sheegayaa walaalayaal Cabdisamed Cali Shire inuu Taleex u dhashay inuu xudumihiisa ku aasan yihiin inuu ninna Taleex ka weydiinayn inuu nin sagax ka weydiiyo ma ninna wax ka weydiinayn inuu ninna ka heebaysan lahayn Cabdiraxmaan Jaamac Xashi Cabdiraxmaan Wadani Somsa TV degmada taariikhiga ee Taleex